gorgoratadii ayaa dhammaan jirkeeda ku qarisay murbac miro laga sameeyey waxayna si degdeg ah ugu carartay jihada keynta laakiin nasiib darro waxay ku dhegtoonay qarnigeed nasiib wanaag waxaa jidka ka xanibay rah taas oo keentay inay istaagto si kastaba ha ahaatee laba rahyo ah ayaa ku dagaalamayay gooryaan ay afka ku haysteen gorgoratadii ayaa bilowday inay ku dayato rahyadii si kedis ah mid ka mid ah rahyadii ayaa afka ka qabtay halka kii kalena uu bilaabay inuu hawo ka buuxiyo intaysan ogaanin waxa dhacaya waxay u duushay sidii buufin oo kale iyadoo dhexe haabaysa keynta ugu dambayntii waxay ku soo dhacday dhulka laakiin dhammaan midabadeedii ayaa ka tirtirmay labadii rahyo ayaa ku qoslay gorgoratadii markaasay iyadoo niyad jabsan meeshii isaga luntay iyadoo keynta dhex mushaaxaysa waxay aragtay gorgorato dhadig ah way raacday iyadoo isku qarinaysa ubaxyada iyo dhirta jidka hareerihiisa yaalay waxay aragtay gorgoratadii dhadig ahayd oo xadhig geed soo jiidatay kadibna kor u fuushay waxayna isku dayday inay ku dayato iyaduna xadhig bay soo jiidatay si lama filaan ahna waxay isku aragtay iyadoo geedaha dushooda joogta gorgoratadii dhadig ahayd ayaa baray xayawaanada kale ee keynta waxaa halkaas joogay gorgorato ku takhasusay karsashada oo dubayay cayayaan kaas oo midabkiisu isbedelayay mar kasta oo uu madaxa dib u raaciyo gorgorato kale ayaa sawir gacmeed samaynayay isagoo isu bedelayay cagaar si uu ula mid noqdo deegaanka hareerihiisa ah gorgoratadii waxay ogaatay in kuwa kale ay si fudud midabka u bedelan karaan markaasay isku dayday inay iyaduna midabka bedesho way iskiijisay laakiin maqaarkeedu sidiisii ayuu iska ahaa markay kor eegtay waxay aragtay gorgoratadii dhadig ahayd oo midabada bedelaysa waxay isku dayday inay ku dayato iyadoo jirkeeda oo dhan dhibaysa laakiin waxay ku guulaysatay uun inay dhuuso ka soo baxdo tani waxay keentay in dhammaan xayawaanadii ay qosol la dhacaan laakiin markan ma ayan niyad jabin waxay soo qabatay cayayaan iftiimaya oo agteeda joogay iftiinkii ayaa hoos ku soo tuuray caleen muus ah isagoo isticmaalaya gacmihiisa ayuu bilaabay inuu hooska u qaabeeyo dhammaan xayawaanadii uu arkay maalintaas hooska xayawaan kasta wuxuu u ekaa mid nool oo dhab ah wax yar kadib xayawaano badan oo keynta ka mid ah ayaa isugu soo baxay si ay u daawadaan intuu bandhiga samaynayay maqaarkiisu wuxuu bilaabay inuu la dhalaalo midabada ugu quruxda badan waxay ahayd wax maskaxda ka xada markii ugu horaysayna wuxuu kasbaday sacabka iyo bogaadinta qof kasta